imikana daawadayaal balaynu eegno wararka dheeraadka ee ka soo cusboonaaday doorashooyinka Somaliland wariyahayaga Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo ku sugan xarunta komishanka doorashooyinka Somaliland Maxamed bal waxaad ka warantaa waxyaabihii ka soo cusboonaaday doorashooyinka Somaliland Said aad iyo aad baad mahadsan tahay Somaliland oo guud ahaan dadka shacbiga Somaliland ay sugayaan in ay helaan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtooyada ee dhacday 13 bisha November aynu ku jirno ayaa guud ahaan dadku dhegtaagayaan Somaliland beesha caalamka iyo wadamada jaarka iyo guud ahaan Soomaalida dunida oo dhan ku dhaqan waxay sugaysaa natiijadii rasmiga ahayd ee ka soo baxday dadkii codkooda ka dhiibtay doorashadii Somaliland sidaas oo ay tahay guddiga doorashooyinka qaranku waxay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan sida ay noo sheegeen saraakiisha guddiga doorashooyinka qaranku berito subaxnimadka in ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kaba dambaysta ee ka soo baxday doorashada Somaliland ilaa iyo maanta waxa ka socday guddiga doorashooyinka qaranka kulamo kala duwan oo ay kaga hadlayaan sidii loo dhameystiri lahaa codbixinta ay dhiibteen dadku natiijadoodii rasmiga ahayd iyadoo sad wararkayga hore baad ku maqlayseen aan idin soo gudbinay in guud ahaan gobolada kale ee Somaliland shanta gobol ee waaweyn ee Sool Togdheer Sanaag Saaxil iyo awdalba si rasmi ah loo soo dhameystiray balse ay ahayd hawsha kaliya ee taaganna magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada oo kaliya oo ahayn inta badan gobolka Maroodi Jeex haddaba saas oo ay tahay berito haddii Allah uu diraado guud ahaan bulshada Somaliland waxa ay sugi doonaan natiijada ka soo baxday doorashadii dalka ka dhacday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ahaa musharaxii la tartamay labada musharax ee kale ee injineer Faysal Cali Waraabe iyo Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku tartamay doorashadii madaxtooyada Somaliland waxa uu goor dhaweyd oo warbaahinta la hadlay uu sheegay saacad ka hor meelahaas in natiijadii ka soo baxday doorashada uu u marayo hab sharciya aan waafaqsanayna natiijada ay ku dhawaaqi doonaan guddiga doorashooyinka qaranku marka waxaynu sugnaabo waxay tahay natiijada rasmiga ee berito waxa Home Cable TV idinku soo deyn doonana si toos ah oo live ah idinko goobihiina iska jooga arrimo social media YouTube-ka iyo television-ka si toos ah uga daawan doontaan guud ahaan dunida oo dhan marka guddiga doorashooyinku ay sida tooska ugu dhawaaqayaan iyadoo dhawaaqiduna ay ka bilaabmi doonto isla xarunta guddiga doorashooyinka qaranka ee haatan aan ku suganahay oo ah goobtan aan idinka soo tabino aalaaba wararka kala duwan ee television Home Cable TV oo idinka diyaariyay arrimaha doorashooyinkii ka dhacay Somaliland 13 bishii November waa aniga iyo Cabdishakuur Day Maxamed oo idin leh waxaan idin soo gudbin doonaa oo naga sugtaan waxay tahay wararka kale ee la xiriira arrimaha doorashada iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ku soo kordha iyo cid arrimahaasi ka hadasha iyo natiijada rasmiga marka natiijada hordhaca marka lagu dhawaaqo ay guddiga doorashooyinka ku dhawaaqaan